xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Sweden dooda badanina baryahan dambe ka taagnaayeen maxag jirba mase maaha wadareen runtii waxay waa qofku inuu dareemo maartay mahad ilaahay in kalsoonida dadka uu helo marka runtii waana faraxsanahay waana adban yani warkaan mas'uuliyad weyn tahay qofku waa inuu dareemo mahadda ilaahay waa dareen aad ugu faraxsanahay codka aad maqlayseen wuxuu ahaa xildhibaankii ugu horreeyay ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kuna guuleystaa inuu xubin ka noqdo mudanayaasha baarlamaanka Cabdirasaaq waa beri waxa uu ku dhashay Soomaaliya 7 bishii Maajo ee sanadkii 1966 laga bilaabo November sanadkii 2009 wuxuu waa beri gudoomiye u ahaa ururka muslimiinta ee marka lagu magacaabo Islaamiska Forbundet gudoomiyaha dalada dugsiyada muslimiinta ayuu sidoo kale ahaa maamulaha dugsiga Romas Schoolan ee magaalada Göteborg ayuu isaguna ahaa waa beri waa aabba leh 5 caruur waxa uuna ku dhaqan yahay xaafadda Angred ee duleedka magaalada Göteborg ama Gothenburg ninku inuu yeelan karo 4 xaas ninku inuu yahay madaxa qoyska go'aanka ugu dambeeya isagu leeyahay ragga iyo haweenku inay kaalinimo kala duwan bulshada iyo qoysaska ku leeyihiin in ninka ragga iyo xaq u leeyahay inuu canaan iyo jirdilba u geysan karo haddii xaskiisu qaado tallaabo qalada ama sariir dhaafo kadib haddii aanay falka wax ka bedelin wada hadal iyo isu tagga oo laga joojiyo maaha fikir ay qabaan xubnaha ururka mudaraadku badankood waxaase jira xubin ka tirsan u sharaxnayd waaga iminkana soo gashay baarlamaanka iyadoona saxaafadda qaarkeed qortay inuu Cabdirasaaq waa beri yahay islaami xag jira aan dhegaysanno erayo uu xildhibaanku sheegay maray waraysi la yeelatay idaacadda la iska daawado ee SVT. Den dag det kommer en muslimsk stat någonstans som kommer efter leva profetens traditioner, då kommer vi så kunna se hur rättssystemet ser ut. Om man skulle du vilja leva i en sån stat? Definitivt, alltså man som muslim skulle kunna se allt omkring. Maalinta uu soo baxo dal shariicada islaamka looga dhaqmo iyo habnololeedkii nabiga ayaanu arki doonaa sida cadaaladu tahay xaqiiqdiina waan jeclaan lahaa inaan ku noolaado wadan uu ka jiro nidaam noocaasiya sida uu barnaamijka idaacadda SVT ka sheegay Cabdirasaaq waa beri xisbigani waxa uu soo dhalatiraa laba arrimood qayb waxa way qaybta xorriyadda shakhsiga inuu dooran karayo waxyaalo kala duwan oo qofka shakhsiga uu leeyahay xorriyad aad u weyn sidoo kale inay jiraan waxyaalo dadku ay si wadan wadaag wada qabsan karayaan marka waa xisbi isku dhex wada labadaba in qofku kaligiis uu maartay wax qabsan karayo liberaali ah ilaalinayna shakhsiyadda muxuu ahay qofka iyo xurmadiisa ogolna in muxuu ahay dadku ay si wada jir ah oo dan wadaag ay u qaybsadaan waxyaalo ka dhaxaya självklart och som du kommer till säga till mig vad tänker jag muslimen jag tror inte på Mohammed är det okej i islam så nej det kan precis det är fel skillnad män och kvinnor ska inte dansa med varandra vi dansar inte med varandra så och det är det som det här att kunna när man hälsar med på varandra att vi tar inte kvinnor i hand. doorashooyinkii dalka ka dhacay 19 Sebtembar looguna tartamayay hoggaanka maamulka dalka degmooyinka iyo gobolada ayuu waa beri ku guuleystay markii ugu horeysay ee ruux asal ahaan ka soo jeeda sidii aad horeyba u maqasheen Soomaaliya inuu baarlamaanka xubin ka noqdo hase yeeshee sidaad horeyba u maqasheen ay saxaafaddu fikirro kala duwan ka bixisay fikirrada uu qabo iyo midka xisbiga mudaraadka ee uu matalaa qabo waxyaabuhu ka hadlayay ayay ka mid ahaayeen xildhibaanku haddaba waraysi aan xildhibaanka la yeelanay ayaan isbarbar dhignay doorashada wixii ka horreeyay oo ay waraysi idaacadda SVT la yeelatay iyo mid ay noo suurto gashay inaanu shalayto la yeelano baarlamaanka waxaa ku jira 45% waa haween haddii loo doorto matalan afayeenka baarlamaanka haween oo markaad soo gasho ay gacanta ku soo taagto maxaad sameynaysaa waa salaamaya gacantana waa ka qaadaya qofka gabadha ama qofka ninka amaanta oo muslimka oo doona inuu saas sameeyo waxaan arkayno qof kasta xaq u leeyahay dadka labadii rabta inay isla daanasto in xaq u leeyahay isla daansaan labadii rabta inay gooni u sheekaystaan
waddankan aynu ku nool lahay xataa guurka saambuga waxa la yidhaahdo dadku inay wada noolaan karaan boyfriend iyo girlfriend iyagoo aan maaragtay aan isqabin marka waantii waddankan xorriya ka jirta taas weytaan soo dhaweyno wataan weytan ilaahi subxaana wa tacaala uu rabo in qof kastaaba uu xaq u leeyahay in uu isagu doorto waxa uu rabo qofka hadduu muslim yahay wuxuu aaminsan yahay diinta islaamka iyo waddankan aanu ku nool nahay dhaqanka ka jira ama shuruucda ka jirta meelo badan bay isaga hor yimaadaan waddan waxaan ku nool nahay thaqaafaad kala duwan leh dhaqamo kala duwan leh diimo kala duwan leh waxaa marka loo baahan yahay diimahaas iyo dhaqamadaas oo dhan inay wada noolaadaan oo ciishaan oo si maaragtay wanaagsan oo jaar wanaag ku jiro oo la ixtiraamayo in lagu wada noolaado marka islaamku waa soo dhaweynaya arrimaha noocaas marka anigu muslim ahaan waxaa laga raba inaan aqbalo qofka kale iga duwan aan soo dhaweeyo aan arko inuu yahay bini aadan xaq u leh inuu diintu rabo dooran karo siduu rabo u dhaqmi karayo marka u malamaynays ka hor imaanayaan islaamista mateed adigu marka ma jecli waxaan jeclay in la yirahdo muslim baa tahay laakiin islaamistana mateed may anu ma jecli in maaragtay magacyada la isku rakibo joornaalo badan aan akhriyay ama maqaalooyin badan oo laga qoray waxaa ku qoran cabdirasaaq waaberi waxaa soo galay baarlamaanka Sweden qof islaamista ah ma tahay masmate may waa definition loo sameeyay islaamista marka inaan qaato magacaan sifa aan garanay xataa waxa ay tahay definition kan u sameyn lahayd muxuu yahay islaam ma jirto aniga sababtoo aan wadamada inuu ka nimid yani waxa carabi kelmadda waxa ka timid kelmadda carabiga islaamiyiin islaamiyiin way weynaatay maanta waxaa ku jira dhammaan dadka u dhaqdhaqaaqa islaamka laga bilaabo dadka raba in xoog wax ku bedelaan ilaa dadka laga maaragtay raba in nabad in wax ku bedelaan marka magac wuxuu noqday magac weyn etiquette waxa weeyaan runtii si rabo loo fasirin karayo anigu shakhsi ahaan waxaan jeclaan lahaa in la yirahdo cabdirasaaq waaberi waa muslimo oo jecel inuu nabad wax ku bedelo oo jecel inuu la noolaado dadka ummadda ilaahay uu ku abuur adduunyada laakiin inaad isbedel nabad ku samayso noloshayda inaan bedelo iyo sida maarata u noolahay xaafadda aan noolahay iskuulka carruurtayda ay dhigato dhakhtarka aan aadayo suuqa aan ka soo adeeganayo waddada aan marayo waxaa la socda inaan ra'yi ku yeeshaan jeclaha waad wax ka bedesho waxayna ku imanaysaa inaan wada hadal bay ku imanaysaa